بسم الله السلام عليكم waxaan tusaale ka bixinaynaa haddii ilaahay idmo qawaaniintii hore ee derivative-ka ee afarta aan ka hadalnay tusaalahan ayaa kulminaya marka tusaalahan ayaan sharxaynaa wuxuu ku leeyahay f of x waxay la eg tahay 6 lagu dhuftay square root of x laga jaray 4 lagu dhuftay x oo ay kor u saaran tahay 3 ama ku jibaaran tahay 3 lagu daray 2 lagu daray 3 loo qaybiyay maxay x square marka waxa ugu horeeya oo ay tahay inaan sameyno horta waa inaan u qorano mucaadalada aan haysano amaba functionkan aan haysano qaab aan derivative ugu sameyn karno taas waxaan oola jeedaa halkan waxaan ku haysanaa square root of x marka anaga horey umaana soo arkin square root of x sida derivative loogu sameeyo laakiin hawalwalin haddaan dhinacan ku qorno square root of x waxa uu la mid yahay x oo ay kor u saaran tahay maxay half marka maxaan ku dabaqaynaa qaanuunkii power rule-ka ama qaanuunka jibaarka ee aan soo baranay ayaan ku dabaqaynaa halkan 3 loo qaybiyey x square ayaa noo taalo iyadana waxaad dhihi kartaa x hooseeyay tahay marka sideen ugu sameyn karaa qaanuunka jibaarka miyaan iyadoo meesheeda taalo ku dabaqi waa maya qawaaniin kale oo qeyb iyo waxaa noo soo socota iyo isku dhufasho ayaa noo soo socota marka qawaaniintaas markaan gaarno ayaan sharxi doonaa isku qaybinta laakiin haddeertaan tan qaanuunka jibaarka ayaan ku dabaqaynaa qaabka aan ugu dabaqaynana waxa weeyaan tan waxay la mid tahay 3 loo qaybiyey x square waxay la mid tahay 3 lagu dhuftay 1 loo qaybiyey x square 1 loo qaybiyey x square-na waxay ka dhigan tahay x oo ay kor u saaran tahay -2 intaan iyo intaan waa isku mid marka halkan waxaa inooga soo baxaayo 3 lagu dhuftay x oo ay kor u saaran tahay maxay ama ay ku jibaaran tahay -2 marka hadda waxaan ku dabaqi karnaa qaanuunkii oo ayadana jibaarka marka 4 lagu dhuftay x oo 3 ay kor u saaran tahay ayada waa okay qaanuunkii waxaan ku dabaqaynaa ayadana jibaarka iyo constant rule-ka lambarka macnaha isma bedelayo labadaana waxa weeyaan ayadana qaanuunka waxaan ku dabaqaynaa derivative markii lambar lagu sameynayo muxuu noqonayaa marka aan qorana hadeertaan qaabkii cusbaa oo aan ka bedelnay marka waxaan dhahaynaa 6 lagu dhuftay x oo ay kor u saaran tahay half laga jaray 4 oo ay 3 ku jibaaran tahay sideeda usoo qaado lagu daray 2 waxba ka bedeli mayno waxaan leenahay 3 lagu dhuftay x maxay oo ay kor u saaran tahay -2 haddii aan marka qaanuunka derivative-ka aan bilowno inaan ku dabaqno waxaan dhahaynaa f prime of x waxay la eg tahay amaba derivative-ka wuxuu la eg yahay 6 lagu dhuftay marka maxaan nidhi haddii power uu jiro x kor u saaran amaba jibaar uu jiro jibaarka marka hore soo degsanaynaa 1 loo qaybiyo 2 kadib waxaan ku dhufanaynaa maxay xt oo jibaarkeedii 1 laga jaray marka waxaan dhahaynaa 1/2 laga jaray maxay 1 lagu daray derivative-ka nama mar raalli ahaada waxaan ka wadaa waxaan leenahay marka laga jaray 4 lagu dhuftay 3 soo dejisay jibaarka kadibna xt 3 ku jibaarneed 1 ka jar lagu daray derivative-ka oo 2 muxuu noqonayaa lambar hadduu tiro meel yaalo waxaan yidhi qaanuun waxaa jiro dhigayo ah waa 0 lagu daray 3 lagu dhuftay jibaarka soo deji waa -2 x -2geedii -1 ka sii jar hadda marka waxaan ku sameynaynaa maxay simplification ama fududeyn waxaan leenahay 6 waxaad u qaybisaa 2 waa 3 lagu dhuftay x oo ay kor u saaran tahay maxay 1 laga jaray -1 maxay noqonaysaa nus haddii laga jaro maxaa la dhahaa -1 waxaa kuu soo haraya maxay -nus ama -half waxaan leenahay laga jaray 4 iyo 3 isku dhufo waa 12 xt 3deedii ku jibaarneed waxaan ka jarnay 1 maxaa kuu soo haray 2 eberka meeshuu ka baxayaa waxaan leenahay 3 haddii lagu dhufto -2 maxay kusoo baxayaan
waxaa kusoo baxaya minus 6 haddii lagu dhufto plus maxay ku noqonaysaa, waxay ku noqonaysaa minus 6. x dina maxaa kor noo saarna minus 2 minus 1 isku dar sum them marka waxay noqonaysaa x ay kor u saaran tahay minus 3. marka haddii aan hadda sii fududeyno sidoo kaleeto horey waxaan u sheegnay x kaste oo powerkeeda yahay powerkeeda ama jibaarkeeda uu yahay negative maxay ka dhigan tahay hal loo qeybiyo x taas hadda minus half baan halkan ku haysanaa, tan minus half bay noo tahay. marka x oo kor loo saaro minus half maxay noqonaysaa hal loo qeybiyo x oo minus half plus half, macnaha x oo ay kor u saaran tahay minus half waxay noqonaysaa ama ay la eg tahay x hal loo qeybiyo x oo ku jibaaran half. x half ku jibaaranna maxaan hore u sheegnay inay tahay maxay square root of x. intaa marka waxay la eg tahay square root of x. marka halkan waxaa kala soo baxaya hal loo qeybiyo maxay square root of x. marka waxaan leenahay waxay la eg tahay 3 lagu dhuftay hal loo qeybiyey square root of x minus 12 x square sideeday noo ahaanaysaa ayadii wax isbedel ku dhici maayaan laga jaray 6. marka maxaan niri x haddii ay kor u saaran tahay negative waxay noqonaysaa hal loo qeybiyey xt oo isla powerkii wadato ama isla jibaarkii wadato. marka halkan waxaa nooga soo baxaya 6 loo qeybiyey x oo ay 3 kor u saaran tahay. sidii aan ku sameynay macnaha tan unbaan tanna ku sameynay, waxba ku celin stepka halka. haddii aan sii fududeyno ugu dambeyn waxa inoo soo baxay waxa weeyaan 3 loo qeybiyey square root of x laga jaray 12 x square laga jaray 6 loo qeybiyey x oo ay kor u saaran tahay 3. xalkanaga ugu dambeeyana kan ayuu noqonayaa.